السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي بوجر رنوجود ميديا كحيل شير كومنت السيا لايك نصارى سيادو سو وبها بوجان واد ما سنتين دمانتين أصحابتي شرفت دقمة رنوجود قبل كشباب ده أيا صندي وجود بيسوه جاجوس إدونا دقمة رنوجود أي انتظر الشحنة أي تهاي مد رقيص إدونا قبل كباورت waaweyn ee shixnada qaadatii aan kaloo korkora laga gada jiro balse hadda ay baqaarada iska yaalan iyo kuwa waliba raqiis waxa la yaab leh iyo sida bakaara loogu gado caasimada magaalada madaxda dalka ee Muqdisho sida loogu gado in xagga loogu gado iyadoo wax weyn basaaray gaadiid ayaa bakaara ka qaaday suuqana si toos ah u geeyay degmada Runugada gobolka Shabeelle iyadoona baqaaro lagu shubo sidaasna dadka deegaanka waana raqiis loorka sokoraya loorka bariis iyo jiraganka cadeey ama macsarta iyo dharka iyo shixnada ayaa raqiiska iyadoo markii ugu horeysay baawur markuu yimaado laga faa'iideysan jira balse hadda maalin kasta waa baaqi dukaan walba oo tagto wixii xamar yeelo wax dhinaca dul saar oo sintiyaal ah amba kun la mid ah ebalna iyadoo 10,000 iyo 30,000 ka badan la saari jira dhibkii Runugood way ka soo baxaysaa balse waxa loo baahan dhalinyaro xoog saarta soona mana maalgashad asxaabadan dalka dibadiisa ku nool oo bogan Runugood meena la soo xiriir ayaa noo sheegay in fursadaha laga heli karo degmada ay soo bandhigto bogan Runugood midii oo looga fadhiyo say bay dhahan u maalgashan ganacsada dalka dibadiisa ku nool ayaa sheegay in $100,000 oo ku maalgashan doono degmada Runugood oo una ka soo deegaanaan wuxuu sheegay dad la degan ee gobolada Puntland iyo gobolada Soomaaliya horumar ay la joogaan ee maalin kasta deegaankooda soo boonbooniyaan balse isugu deegaankiisa meel kala soo xiriiray way wiilkan bogan Runugood media nala soo xiriir ayaa noo sheegay inuu bogan markuu arko ku farxo oo asxaabta la wadaaga dhankaas joogta ee boonboonisa gobolada Mudug iyo Galguduud iyo Bartaas iyo Puntland oo sheegay deegaankii wuxuu yiri anigu ma aqaan degmada kumana dhal xamaraan ku dhashay bacdina Yurubanta dadka Yurubka joogan 30 sano ugu dambeeyay dalka mana aqaan meel ku taala balse in ka soo deegaana waan u baahan lacag banaysa $100,000 ayaan ku maalgashan doonaa wuxuu sheegay inuu dalka ku soo wajahay balse bogan Runugood media ayuu shuruudo uga dhigay inuu soo bandhigo waxyaabaha looga baahan yahay ee lagu maalgashato idoona degmada Runugood ay noqon doonto suuq ganacsi oo weyn maadaama ay marto wadada weyn isku xirta عاصمة Soomaaliya Muqdisho ee xeebta ilaa gobolada Galguduud Mudug ilaa Berbera ilaa Somaliland wadadaan oo shixnada ugu badan ay maraan ay wadada degmada dhaxmartaan degmada Runugood gobolka Shabeelle dhex ayaa waxa ka baxa diirta masagada iyo waxyaalaha badan degmada Runugood gobolka Shabeelle dhex ayaa u baahan ganacsi weyn loogu hirgeliyo iskato degmada barihi ugu dambeeyay ka soo hagaagayso degmada Runugood gobolka Shabeelle dhex saxa dhalinyarada ka soo jeeda ayaa dhalinyaro ka hurda taasaan dhibka ugu dhalinyaray dal walba dalkiisa dal walba dadkiisa dhista waxaan ku boorinayaa in degmada aad ku soo laabatiin adaan maalgashatid bogan Runugood media waxa mar waan heriya habeenka go'an oo degmada soo tabiyo wax walba ka jal iyo wax walba dhiba ay qabtaba ilaahay waxaan uga baryaynaa degmada Runugood inay noqoto Soomaaliya isku xirta naqatana Soomaaliya loo maslaxadeeda looga taliyo asxaabi bogan share siya like nasaara commentina ka dhiibta sad bogan u kala kicin asxaab badan nala soo xiriirta noona sheegto waxyaabaha ay bogan ku sii wanaagsan haduu soo bandhigo waana ka aqbalaynaa qof walba oo nala soo xiriirta fikir wanaagsan oo keento waan ka aqbalaynaa wax walba xog aad haysan nala soo wadaag mahadsanidin asxaabta bogan Runugood media ku xiran galab wanaagsan